معهد عافيمادك ee Kaafi College ayaa dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabisay macadkaasi waxa uu qabtay xaflad qalin jabin xafladaas oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhaqaatiir odayaal waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay maamulaha macadkaasi Maxamed Cali Ducaale kana warbixiyay marxaladii kala duwan oo macadkaasi la soo maray macadkan baahida loo furay waxay ahayd markii aanu eegnay qiimeynayna baahida ka jirtay deegaankan dhanka caafimaadka marka loo eego xagga neeriska oo aad uga liidatay taariikhda iyada runtiina hamigan iyo diidiiladan iyada aan kulay ku hirgeliyay macadkan kuna aasaasay waxa ay gashay waqti fog waxaana ka mid ahay dhalinyarada deegaanka kana mid ahay aqoonyahanka da'da yar ee deegaanadan waxa weeye isla mar ahaantaasna hamiga u haysay inay wax ka bedelaan jiilka cusub iyo jiilka soo koraya maxay ahayd si loo helo isbedel xagga horumarka marka maxadkan casharada lagu qaadanay ama waxyaalaha ardaydu qaadanaysay waa ay farabadnaayeen waxa uu ahaa kooras hal sano ah isla mar ahaantaasna lagu qiimeynayo hadba deegaanka maxay ahayd marxaladiisa iyo xaaladiisu waxa weeye meesha ay marayso waxa maqaalay inagu ah in Widhwidh dad fara ku tirisa ay shalay toole ay wax duri karaayeen maantana marxaad ka nahay in dad konton in ka badana ay wax duri karaan marka labaad waxaan mahad celinayaa macalinkooda macalin Maxamed Cali Ducaale oo runtii dadaal dheeraad ah ugu soo maray ardaydiisa runtiina ku dadaalay deegaanka waxyaalaha u baahnaan ardayda soo qalin jabisay iyaguna waxaan leeyahay dadaal dheeraad hada sameeyay wadooyinku weydii furan yihiin waxaan kaloo leeyahay MCH kood isku soo dhaweynaa hadda koona laba shaqaale oo aan qaadanay iminkana waan garab taagan oo doonayna inaan isku soo dhaweyno MCH ka hadalka waa soo ururayay waxaan oranayaa waniga dadaal baan isku ognahay saxa software ahaan anagu waa la garab taaganahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad boqolaal jeer anagu waa la garab taaganahay waxaan mar walba diyaar u nahay wax kasta oo soo baahday ay ka soo gasho inaan furihiisa u dhimno ardaygu hadii aan wax la qaban oo waalidku soo wax la qaban ardaygu waa moral jabaya kaliya wax qaban maayo marka qolada waalidiinta waxaan leeyahay aan magacooda ku hadlayo waxa la inaga rabaa dadaal baa la inaga rabaa inaan dadaalo hadii aanu noqdo qodobkaygii hore oo ahaa waxa uu yahay cudurku waa fayoobi qabka iyo maskaxda oo waa fayoobi darro ku timaado xubin ama xubno kamid ah jirkaaga ruuxantii caawa farxadan iyo qiimahan iyo shucuurteedu aad bay u sareysaa ayaan oran karaa waxaan jeclahay ardayda maanta qalin jabisay inaan u diro fariin oo aan idhaahdo waxaad saarteen tallaabadii koowaad ee waxbarashadu inta ma aha waxbarashadu way ka sii weyn tahay waliba caafimaadku waa tallaabadii koowaad qofka markuu wax barto garta dadkaaga kula noqo laakiin qof intuu wax bartay waxa weeye garan waayay dadkaaga kula noqo lama mahad celiyo waxaan aad iyo aad dhalinyarada ugu mahad celinayaa gabdhaha caafimaadka bahda caafimaadka oo dhan bahda kale ee waxbarashada bahda hooyooyinka si kastaba ahaatee dufcadani ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee macadkaasi tan iyo sanad ka hor markii laga aasaasay deegaankaasi ka qalin jabisa waa Cabdiro Qalin TV Widhwidh